waxaan haddan kusoo dhaweynayaa walaalkeen maxamed sheekh xasan oo inoo ka wargeliyay buugaagta publisher islaamka insha allah sabta buugaagta waqti mas'ala hayo dadba ay ku codsadeen buugaagta yani wax ka akhriyo maanta markii waxaan akhrinayaa maahmaahiyada waxaan maleynayaa barnaamijka inaan u baahanahay inaad ka xogaa la xojiyo marka waa ujeedaan baa lagu guuray hagaag waxaan soo qaadanaynaa maahmaah waa maxay maahmaahda waa sugaan dadweyne carabi wuxuu yidhaha aadam shacbi oo facbo ka dhaxlay fac ka dambeeya waa hadal murtiyeed kooban oo jiilba u sii dhiiba jiilka yani ka dambeeya oday baa maalin weydiiyey wuxuu yidhi war maahmaah dadkiina yani soo qaxay maxaa tirseen kuwii hore baad haysaane waan raadiyey ilaa iyo hadda ma helin qofkiinii hayo waa ii iman kara waxaa ugu soo dhawaayey mid aan ka helay oday yidhi dhulgaalo waxaan ku nacay geeda qaawan xilliga qababaha iyo naaga qaawan xilliga kuleelaha taasaa ugu soo dhawaatay yani waxaan hagaag maahmaahdu marka waa hadal noocaasa waxaad helaysaa abwaan tiriyey 100 gabay sida maxamed cabdulla xasan cabdullahi sadaati macade ismaan yuusuf geerdi ali cilmi afeer allah naxariis ku dhawaabay yani waxay leeyihiin gabayo fara badan oo boqolaal ah ilaa iyo hadda ma hayo abwaan loo nisbeeyey kuwa maahmaahad inuu leeyahay waxaa ugu wacan maahmaahdu xeer bay leedahay si ay u hana qaado waa in caasha iyo cambara iyo cali iyo cusmaan kulli iskusu ay u soo qaataan oo nin walba ku xoojiya ujeedadiisa taasaa marka waxay keenaysaa waa in qof walba aqbalaa oo maaragtay kaydka sugaanta ka soo qaataan oo markaasay noqonaysaa waa sharciga ay ka duwan tahay gabayada gabayga laakiin qofkiisa askari ninka hadda waa doominayey ama qaada ama ha qaadan hadhow daaqadaa ka baxaysaa laakiin maamaha markay noqoto kulligan waa inaan maaragtay isku sii aan u soo qaadanaa qaybaha ay u qaybsato waxaa ka mid ah maahmaahda dhowr qaybood maahmaahda tooska ah waa tan macnaheeda iyo ujeeddadu ay tahay sida ay u dhawaaqayso waxaa laga hadlayana ay ku qeexan tahay ujeeddada tusaale waxaad jeceshahay haddaad weydo waxaad ka badin weydo ayaa la yeelaa rag waxaa kuugu daran nimaad sugayso soo socon iyo nimaad soortoo kaa socon ujeeddada iyo hadalku waa isleeyahay maahmaahda quusrawgu waa maahmaah leh oraah ujeeddo kale ka hadlaysa waxaana aalaaba laga dhadhasan karaa cagajugnayd iyo hanjabaad tusaale nimaan wacad kaa reebin waran kaama reebo daftigii ciirta ku dabaarfartaa oodka ayuu ku gubtaa maahmaahda durxurka ah waa maahmaah ku caddaynaysa inay jirto wax aadan ogeyn oo kaa daarsoon si toos ahna aan lagu sheegayn waxaa la yidhahdaa waa digniinaan toosayn tusaale walaashaa iskuma ogtide seediga ha colaysan ama la colooda xilda laangartay weyna maahmaahda sirmeerta ah waxa weeye waa maahmaah tilmaamaysa kala duwanaanshaha oraahda hadalka iyo ujeeddada waa hadal maldhahan oo leh ujeeddo kale aan ahayn kala oraahda tusaale sirmaqabi saabaa biyo celiya ama rag yaraaday waxaa laga dayaa rag yaraaday tabarna awood baa laga dayaa dumarkiina dhamaan wey maanu maartay maahmaahda marka waxa weeye waxay leedahay qaafiyad waxaa la yidhaha mid waa dhul waa hal xaq oo kale waa kuwa gaagaaban tusaale ruuryalkaba waa la caddeeyaa farabeen ma sheegaan furi hooyadii ma gablanto ilka adeegso hoos ka xidhiirsan xalaal iftiin baad maqashaa gaasha wed ma aragto waa maahmaah gaaban oo markiiba right to the point ku dhacaysa waxaa jira maahmaah laba dhulood ah oo laba hadal oo laysu kabo oo markaa koomo loo dhexaysiiyo tusaale haddii ay dhibi timaado dhabaqo meel beesha harag sagaaro iga kac mooyee iga durmale kor waayeel waa wadindhoo waxa weeye laba sentenis ayaa laisku kabay dhexda ayaa markaa waxaa ku jira yani hakan waxaa jira maahmaahda iyadana saddexdayda ah oo aan taan ugu jeclahay oo xogaa inta badan aan marar badan akriyo waxa weeye waa saddex iyagana yani hadal oo laisu kabay tusaale saddex ma heshiiyaan nin qosol badan iyo nin qoonsimaad dhow nin qosol badan iyo nin qoonsimaad dhow nin duud jecel iyo nin aan u qoorin nin qab weyn iyo nin aan u qabin waa saddex aan heshiinka google wuxuu ka kooban yahay 1600 maahmaahood baan baranaya soomaalida ku dhaqan magaalada Stockholm ka wariyay way macnaysan tahay
waxaan u gudbayaa tooska waqti aan yani u seedgareeyo saddexdayda oo aan xogaa idiin akrinayo saddexdayda marka waa sida hadda aan sheegaynay waa hadallo laisku kabay oo ah lamurtiyeeda badanaa waxay u badan tahay waxaa laga soo diraadhiriyey gabdhaha miyiga jooga markii yani matalan ciyaarta heebadoo kale saddex way gurguurtaan daad weyn oo dix soo maray daayimo caruureed iyo diig way guurtaan miyiga waxaa loo jeeda hey hey saddex way gurguurtaan hey hey saasoo kale ahaan jirta maanta gabdho saddex way madowdahay miiraalo roobaad habar madiga laga dilay iyo maydkugu madow yahay saddex baa walaalo ah dayax iyo daruuraha iyo diirarkaa walaalo ah saddex kale ayaa walaalo ah geela iyo ninkii jiro iyo gorobkaa walaalo ah rag waxaa ugu liita saddex nin maqan oo aan la tabin nin jooga oo aan la tirin nin tegaya oo aan la celin waan ka badboodaya qaar baan kasoo qaadanaya saddex baa hoog ah saddex baasi hoog labaad ah hogaan xumo ayaa hoog ah odayga hadday gashaa hoog labaad ah hawagaabni ayaa hoog ah hordhigga hadday gashaa hoog labaad ah hungurixumaa hoog ah habarta hadduu galaasi hoog labaad ah hooyadu waa qofka lagu baxsada kaydkaa weyno saddex alla kulama kulmiyo hadday kula kulmaana saddex alla kaagama dhigo waa iska hadal murtiyad weeya yani runiga beer midna ha u qaadan waa dad baa ka xanaaqay raalli ahaada bakayl alla kulama kulmiyo hadduu alla kula kulmiyana sheekaalow alla kaagama dhigo raalliyo alla kulama kulmiyo waa xogaa yar caasinima ku jirta hadduu alla kula kulmiyana yani madhasho alla kaagama dhigo ayay ahayd laakiin dhasha ilaa baabixiya taas waxooga iyaba saddex baa boqornimo kaa qaada garan weecsan gacan guran iyo guddoon jilicsan saddex baa rag ugu liita matoshe matashada iyo matashiishe saddex culaysbay ku roon yihiin geel culays buu ku roon yahay haweenna culays bay ku roon yihiin nabadina culays bay ku roon tahay gabdhaha waad guudaan leeyahay maartay markii miisaan leeda culus tahay ayaa wanaagsan saddex lalama dego fulay daandaansi yaqaan bakayl damac badan doqon fiira taqaana saddex lama raaco mahoreeye mahambeeye iyo mahasaawe saddex ma heshiiyaan nin qosol badan iyo nin qoosimaad dhow nin quud jecel iyo nimaan u qoolin nin qab weyn iyo nimaan u qabin saddex xaaskaagaa kugu dhacda hanti la-aan hamba la-aan iyo himilo la-aan saddex ninkii diida saddex baa leh saddex baa hela cilmi culima ninkii diida cadaab baa leh cilmi caama ninkii diidana cood la-aan baa leh cilmi dumar ninkii diida caruur la-aan baa leh waa ragoo safra hoy haddii kale caruur ka dhelmays wey saddex baa loola darsaa doqonnimo deeq baa loola darsaa fulanimo dhaar baa loola darsaa foolxumo xaragaa loola darsaa saddex kama dharagto ilidaymo kama dharagto dhulna biyo kama dhargo dhegina war kama dharagto saddex bay ku silciyaan nimaad sugayso soo socon nimaad sugootisay oon kaa socon nimaad sagootisay oo kugu soo noqda saddex baa lagu kabaa